بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبرنامجكي عادي هان أن سوق الجري لكن شرعا كباغضي وحضر دار كما بحنا وذكرها لقلنا يا أنتي سوقي سي إن أنا نوع عذر دار كبحنا كباغضو حالadaha isbeddelaya degdega iyo waxaasan baan ku mashquulsanayn marka insha Allah taala waa hadda kadib waan isku dayi doonaa inaan hadii aan ka baaqdo inaan idin la socodsiiyo ta kale waxaan jeclaan lahaa inaan idin la socodsiiyo maalinlihii barnaamijkii aan maalin walba soo galayaa ima suurtagelayso maalin walba inaan soo galo maalba inaan soo galo sida caadada ahayd waxaan isku dayi doonaa weekendiga bas inaan soo galo waraysiyo badan baan diyaarinayay oo dad badan aan wada hadalay siyaasiyiin ama waxgarad ama aqoon-yahan kale gebi ahaantoodba xaaladda degdega ah ee Ethiopia ka dhacay saacadda ayaa mashquul badan iyo waqti badan naga qaadatay aniga iyo rag kaleba oo hawsha aan isla diyaarinaynay waxaan isku dayi doonaa haddii rabbi idmo inaan barnaamijkii si toos u bilowno iyo hawshii aan wadnay wacyigelintii tafaraaruq iyo dhabarjabin iyo wax waa iska jirayaan laakiin muhiimaddu waa baraarujinta dadka wacyigelinta isu soo dhaweynteeda waxaan wareysan doonaa insha Allah taala mar dhow waxaan wareysan doonaa mas'uul ka tirsan xisbiga cadaaladda إن شاء الله تعالى لكن أنت كورس أنا جعل إن ندور وح كلا يرعى ديو أون مارتد ومضى وكلا عديو مركو هردد بوحيرهان عبد الرشيد مركو لايف ككهل يقرأ الذي سو اسمع لها ويكلا قد سين ما كلا قد سنو لكن قرالك ده يرددكم ما آخرين كران مركو واحد شيء لهيد بوحان اسكت ضيا إن صوغ عبيو markaan soo gaabiyo waxa dhacaysa suu tafahum ama misunderstanding ama khalad in loo fahmo laakiin marka aan hadlayo way ka dhib yartahay inaan arintii sharaxo oon fikirkayga ama wixii aan markaa soo gudbinayay aan si fiican dadka uga wada qanciyo laakiin markay qoraalka tahay waxaan darsoon ogaaday qoraalada dhaadheer dadku ma akhriyaan in yar oo gaaban bay rabaan wayna iska adag tahay 150 eray ama xaraf inaad wax walba u rabto ama sababta dadka ugu sharaxday taasa keenaysa isfaham darida marar badan oo markaan live ku jiro waad ka boganaysaa ama si fiican baan u sharaxi karaa waxa aan markaa leeyahay iyo fikirkayga laakiin qoraalkii uu kooban yahay inta markaan ka gudbo waxaan jeclaa arrin maalmahan aad ugu soo noqonaysay wada hadalkii Nairobi inaan wax yar ka hadlo wada hadalka wixii xog ah xaqiijiyay oo ilo qarsoon ama aan la shaacin karin aan ka helay ayaa soo qoray oo aan aad u hubiyay haddii qodobada lagu heshiiyey sida mudane maade uu shalay sheegay waxyaalo yar yar la isku afgaran waayay intay soo baxaan wixii aan ka qoray ay been noqdaan waa raaligelin baan ka bixinayaa qodobadii raaligelin baan ka bixinayaa waan ku soo celinayaa raaligelin baan ka bixinayaa qodobadaasu hadday khilaafaan wixii aan hore u soo qoray marka ay banaanka yimaadaan la soo bandhigo ama media loo soo bandhigo ilihii aan ka xigtayna marka dambe waan iska hubin doonaa dib calaamad su'aal baan saaraya markii koowaadna ma aha dad badan baa warar ii soo gudbiya marka ii cadaato in warkaas been yahay ama ay been ii sheegan raaligelin baan ka bixiyaa xigashadooda dambana waan iska ilaaliyaa marka waadna dareemi kartaan oo xaaladeena ama dhulkeena uu ku sugan yahay deegaankeena ama sida warbaahinta caalamku u shaqeyso ilaha lama fashili karo hebel baa saa igu yiri lama oran karo oo hebel baa saa ii sheegay lama oran karo laakiin wixii waa ilaa iyo xad baad mataqaan ayaad hubinaysaa baaraysaa dhinacyo kala duwan dad kala duwan marka ayada haddii waxaas uu wax ka soo noqdo ama ay beenoobaan waad ka raaligelinaysaa dadkii ilahana dib baad ugu noqonaysaa taasu waa taa wixii fikirkayga marka waxaa jira meeshayda aan wax ku soo qoro ama halkana marna warar baan soo tabiyaa marna fikirkayga ka hadlaa fikirkayga waxaan u qabaa wada hadalka inaan xaq u lahaa sidaan u arkay inaan u cabiro
maxaa yeelay ururka ONLF ama Cabdi Ilay iyo maamulkiisa sidoo u maamulanayo kama hadlo haddaan maanta fikirkeyga ka dhiibto hebel baa gudoomiyaha ONLF laga dhigayaa iyo intaasaa golo dhex ha noqoto intaas guddi fulin ha noqoto waa khalad iyo maaragtay saas shirka halkaa ku qabsadaan istiraatiijiyada hadda jistaan waa arrimahooda daakhiliga ee xubnaha ururka iyo dadka ka tirsan ayaa xaq u leh inay ka hadlaan umana malaynaya inaad aragtaan anoo ka hadlaya laakiin waxa saameynta inagu leh oo aniga iyo adiga iyo qof walba siyaasadda saameynta inagu leh sida wada hadalka Nairobi oo kale xaq baan u arkaa inaan ka hadlo fikirkayga aan ka dhiibto maxaa yeelay go'aamada ka soo baxa waxa laga yaabaa aniga iyo ehelkayga saameyn inay nagu yeeshaan sababta kaliya oo uga hadlayna waa taa wada hadalka un baynaba ku qotantay muhiimaduna waxay ahayd waliba Cabdi Maxamuud Cumar oo ahaa xaqiiqatan dadkii kacdoonka waday waxa kaliya ay ku mideysnaayeen dadku in la xoroobo kuma mideysnayn qaar badan baa u arkay xornimada inaan la heli karin ama ayna suurtagal ahayn qaar baa u arkay in xornimadu muqaddas tahay laakiin dadku waxay isku wada raacsanaayeen Cabdi Maxamuud Cumar inuu daalim yahay dadkiina uu wada dulmiyay uu wada dhibay ayay dadku u arkayeen marka ninkii asaga ahaa inuu cumaamo tol ama qabiil uu huwado oo siyaasiyiinta Soomaaliya ee beeshayda u dhashay siyaasiyiinta Kenya ee beeshayda u dhashay iyo jabhadaba isla soo sawiro waxay doonaha ka ahaato si wanaagsan bay jabhadu u fikiri kartaa laakiin waxa aan ka hadlayo ma aha jabhadu sida ay u aragto sawirka iyo wada hadalka waa sida ama impressionka ay bixinayso suurada ay bixinayaan nin tolkii dhinaca ka galay la cafiyay ilmaadeeradii oo siyaasiyiinta Kenya qaarkood ay lahaayeen weekend kasta noo imooba iyo bixinay waxaan diidanaa in ninka dhiigacabka ee fircoonka in laga dhigo qof caadiya oo tolka ah oo madaxda oo la siman aadan bare ducaale iyo Sheekh Axmed Madoobe oo lala fadhiisan karo shaah la cabi karo waxaan rabay in laga dhigo nin la takooray oo Tigray raacay oo maaragtay dadkiisi dhameeyay 20,000 oo qof ka badan ay dilay 20,000 oo kale ay u xiran tahay intaas 1 milyan qixiyay sida in loo arko ayaan rabay oo jeclaa laakiin sawirka ka soo baxay sida uu muujinayay baa waxay ahayd nin aan maaragtay tolka ah oo wax dhiba geysan taas ayaan diidanaa danta uu kala haasaguna taas ay ahayd dan kale oo ka sii weyn ama ma aaminsani ka shakhsi ahaan Cabdirashiid ahaan ma aaminsani Cabdi inuu dan umadeed ama fikir umadeed uu ka hadlayo iyo ay ka tashigooda iyo mustaqbalkooda maxaa yeelay ninka shalay toole xalay waxaan soo qoray wiil sawir la galay Mareykanka markaan tagay oo walaalkii la xiray rabbi ha ka soo daayo Maxamed Gurey baa la walaalkii ninka u xiraya hebel baad sawir la gashay walaalkii hebel baad sawir la gashay dartii walaalkii oo wadankii jooga ma aaminsani inuu dad ka naxayo ma aaminsani in qadiyad ummad uu ka hadli karo mana aaminsani in masiir ummadeed lagala tashan karo ama lagala hadli karo waan ogahay awood badan buu haystaa waqti xaadirkan awoodda wadankii ka jirta waa asaga laakiin waxaan qabay inaynu isku raacno maadaama ay kulligeen isku raacsanahay inuu daalim yahay maslaxada ummadeennana uusan wadin inaynu isku raacno si aynu meesha uga hor qaadi lahayn dadka dad badan baa igu yiri ma waxaa kaliya ood ku wajahantahay Cabdi Maxamuud Cumar waqti xaadirkan waxa weeye adduunka waxaa jira la yiraahdo short time plan medium time iyo long time qorshaha dhow qorshaha dhexe iyo qorshaha fog qorshaha dhow Cabdi Maxamuud Cumar dadka in laga hor qaado baan u arkaa qorshaha ku xiga ee mediumka dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ayaka oo waxgaradkooda aqoon-yahankooda inay soo hor fariistaan ay ummadooda jiheeyaan mustaqbalkooda haddii ay ka mid sii noqonayaan Ethiopia ay wax ku leeyihiin oo qaybtooda ay ka qaataan oo xaqooda iyo xuquuqdooda ay ka helaan haddii ay ka go'ayaan isku raacaana inay ka go'aan oo wadan madax bannaan ay noqdaan waan ogahay Soomaalidu waa qabaa'il jabhado badan baa waqtigii tusaale waxa inoogu filan Soomaaliya markii ay duntay 1991kii qabaa'iladu xabad bay iskala soo wada horjeedsadeen way istagaaleen markii burburku u dhacay waxa aan leeyahay waxay tahay inta uu soo burburku dhicin dadku ha sii wada hadlaan waxa isla sii gartaan ha isu yimaadaan qabaa'ilku qabiilkayga waan ogahay waxa weeye waa laba dawladii iyo ururkii jiray ee la dagaalamayay labadaba beesheeda ayaa u badan
inkastoo ayna wada ahayn ama hogaamiya oo xisbiga kilalka ka taliya gudoomiyihiisu waa maxamed rashiid oo reer liibana onraftana sidoo kale way ku jiraan laakiin ayakaa u badan ummad kaloo badan qabiil baa laga yaabaa inay u arkaan ama u sawirtaan labadaaba ma oon inaga ahayn sidaa darteed waxaa islahaa bal dadkan kalena oo ama aan aaminsanahay ummadda kalena inay ayakuna qof walbaba intii isku fikira ay is abaabusho intii isku aragtiya ay is abaabusho ay isu maartay timaado la wada hadlo la isu soo dhawaado waa muhiimadeyda dulmidiid baan wax yar idinka qancinaya dulmidiid waa dad badan oo isu tagay fikirka kaliya ay ka midaysan yihiin waa dulmiga cabdi in lala dagaalamo sida aan qabo dad waxaa ku jira aaminsan ethoobiyan inay yihiin ama ay ka tirsan yihiin dad waxaa ku jira inaysan etoobiya inaysan xuquuqdooda ka helin etoobiyada kore aaminsan laakiin ka wada shaqaynaya waxa ay ka midaysan yihiin marka taasuna waa tusaale fiican oo dad badan mataqaanaa meel wado wanaagsan tusaysa inay dadku waxa ay ka midaysan yihiin ay ka shaqeeyaan inagoo dhanna waxaa muhiima ama mataqaanaa waqtiga xaadirkan muhiimada koowaad inoo ah waxa aynu ka midaysannaha inaynu ka shaqeyno waxa aynu isku khilaafsannaha inaan iska dayno marar badan waxa khilaafaadka ah bay soomaalidu jeceshaha inay ku mashquusho oo ay mataqaanaa maantoo dhan sidaasaa diidan tahay shalay maada sidaas soo qorin mara hebel baad wadatay maradaa kalaad wadatay waxaweye waa waxa masaa'il khilaafiya waa masaalooyinka la isku khilaafsan yahay waa waxa aynu ku kala tegayno marka waxa aynu ku midaysannahay inaan ka wada shaqeyno oon ka wada hadalo mar walbaba waa muhiim waxaa kale oon raaligelin idinka wadaa taageerayaasha jabhadda onlf walaalkay gudoomiye cabdinuur xasan aabi oo habeenkii khudbadii uu jeediyey ay keentay hadalkii uu yiri nabadiidka ayaanu ka sifayna magaalada minneapolis ay keentay khilaafaad ama cuqdad ama shaki ummadda soo kala dhex gala hadalkaa kuma raacsanayn maalinkii waan sheegay asaga laftigiisu khalad buu ahaa buu yiri inaan idhaahana ma ahayn munaasabna ma ahayn wuuna idinka raaligelinayaa sida aanu shalay ku wada hadalnay raaligelin buuxda buu idinka siinayaa marka inaad intaana ku qalbi xaarantaan oo ereyga ummaddu way khaldantaa wayna gaftaa qofku laakiin markuu ku raaligeliyo waxaa fiican inaad raaligelinta ka maaragtay aad ka aqbashid marka maadaama ereygaas khalad buu kusoo dhacay kuma raacsanayn asaguna khalad buu u arkaa hadda taana inaad raalli ka ahaataan ayaan jeclaan lahaa marka aan siyaasadda aan dhaliilo ama wadahadalkii nairobi kama dhigno jabhadda inaan dhaliilay wax uqdada uma qabo taageerayaasha jabhadda weliba waan ku ammaanayaa inay yihiin dad abaabulan cabsidiina jabiyey derbiga cabsida xaqiiqatan qofka gartiisa looma diido taageerayaasha jabhaddu waa dadka keliya ma dhihi karo laakiin waa dadka ugu badan ee derbiga cabsida jabiyey ma leeyihiin dabeecad ah inay haddii wax yar dhankooda ama madaxdooda laga sheego inay xanaaqaan oy kugu caraatamaan oo maarata ay kula yar dagaalamaan haa waxaasna waxaa keenaya waan dareemayaa wax intaasoo san loosoo dhintay loosoo halgamay rajo badan oo muuqata qofku wuxuu isu tusi karaa rajadaasu in ma aragtay ay sii ama god lagu ridayo qofkii soo hadal qaada ama si xun uu wax uga sheegayo laakiin dadkan kale ee faraha badan waxaan jeclaan lahaa inaad tixgelisaan dad idinka fara badan ayaa weli cabsanaya magacooda waxba kuma soo qori karaan tusaale yar baa idin siinaya cajaladii aan maalinka dhaweyd soo dhigay faarax dawaar ah waxaa daawatay 40,000 oo qof waxaad ku tala gashaan 49,000 iyo hadda maraysay 49,000 waxaad ku tala gashaan qoraaladeyda way akhriyaan dal iyo dibad bay joogaan fikirkoodana xor uma aha marka messagekaygu idinkuma socdo mar walba ha isu qaadanina inaan idinla hadlayo intiina derbiga cabsida jabisay yar waynu yarnahay inteena derbiga cabsida jabisay ee fikirkooda si xor ah uga dhiiban karta Facebook ama meel walba ama comment garayn karta waxaa jirta kumanaan ama malaayiin aan fikirkooda dhiiban karin magacooda aan ku cabiri karin oo idaawada waxaan soo qoran akhriya marar badan kuwaas ayay la hadlayaa kuwa ayaan leeyahay derbiga cabsida jabiya kuwa ayuu messagekaygu inta badan uu ku wajahan yahay markii akhbaarta laga reebo kuma wajahno taageerayaasha jabhadda iyo inta cabsida jabisay inta waxaan jeclaan lahaa inay idin kala cadaatay ayaan mataqaana aaminsanahay walaalayaalow
waqti xasaasi buu waddanka Ethiopia maraya saad ogtihiinba xaalad degdeg ah lagu soo rogay waddankii oromadii iyo axmaaradii way diidan yihiin shucuubtii way wada kacday inta badan way midowday ayagoo kala axsaaba kala afkaara waxay u midoobeen xaqooda innagana waxaan jeclaan lahaa waxa masaa'ilu takhaalufka ama waxaynu ku kala mataqaanaa duwannahay intaan iska dayno aynu u midowno erayada ah magacyada xunxun ee la isu bixiyey waan soo dhaweynayaa shalay maaragtay la yiri hala mamnuuco dadkeena gudihiisa inay soo yeeraan dadkeena dibadda jooga waliba magacyada xunxun ee la isu bixiyo khilaaf bay keenaan ficiltan bay keenaan xumaan bay keenaan marka magacyada xunxun in la joojiyo oo especially dadkeena shacabka ah ay joojiyaan oo la isu adeegsanin waan qabaa dadka kililka ka shaqeeya ee ama mas'uuliyiinka ah ama xogayaalka ah ama liyu booliiskaba ku jira ee dambina dadkooda ka gelin ee u shaqeeya fikirkaana la quman yahay ayakana waxaan kula talin lahaa dadkooda si wadaniyada inay oola shaqeeyaan xogaha iyo hagardaamooyinka loo maleegay inay ka hor yimaadaan inay u istaagaan ama ay dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkooda sida ay u dhiirigeliyeen oromada iyo qoomiyadaha kaleba waa muhiim dadkaasu in badanna waan soo qoray oo fariintaydu ay ku socotay waxa weeye calankaa dooni wata fikirkaa dooni aaminsanaada laakiin shucuubta Ethiopia way kacday xaqooday u wada istaagtay idinkuna xaqiina u istaagay cabdi maxamuud cumar iyo afarta wiil ee ilmaadeerka yihiin iyo seediyaashii haw afxadnaanina mustaqbalka ummadda ha ka sugina uma malaynayo caqli badan inuu idinku kordhinayaan cabdiraxmaan laba goole iyo khadar dheere iyo deeq laba goole iyo mukhtaar suubane fikir iyo caqli iyo xigmad ka badan islaan la dilo oday la xidho mid la caburiyo ma ay hayaan marka intiina wax garanaysa ee deegaanka ku hadhay waan ogahay inaad shirtaan waan ogahay hoos inaad u wada hadashaan laakiin waxaan jeclaan lahaa kacdoonka asaga inaad ka dhabaysaan aad kor u hadashaan aad dadkiina garab istaagtaan wiilasha liyu booliiska wixii dambi galay waa goonideeda waqtigeeda la xisaabin laakiin dadkooda ha garab istaagaan ha ku daydaan wiilasha liyu booliiska ee Oromiya xabad aysan ku ridin mudaharaadka ha kala qayb galaan ha isla sawiraan ha dhiirigeliyaan waa fikirkayga waa sida aan dadka u soo jeedinayo inta markaan ka baxo waxaan waraysi ka qaadi doonaa walaalkay maxamed ismaaciil maxamed ciise oo dalka Mareykanka ku sugan xisbiga cadaaladana ka tirsan insha Allah taala hal mid baan ku darayaa intaan maxamed ciise soo ana maartay ana ku soo xilin waxaan diyaar u ahay jabhadda oo mas'uuliyiinteeda horeyna waan u waraystay wax sas ahna kama qabo wax sas ah kama qabo inaan waraysto siday wax u arkaan iyo fikirkooda ay aniga iyo intay daawataba ay la wadaagaan waxa weeye waxaan u arkaa dhibaato uma arko diyaar ayaana u ahay sida ururada kale iyo mataqaanaa xisbiyada kale aan u waraysto inaan ayakana u waraysto afkaartoodana aan weydiiyo laakiin haddii ayagu ay ka cudur daartaan ama ay diidaan hal qolo unbaad cabdirashiid oo waraysataa in laygu eedeeyo khalad baan u arkaa marka inaan waraysto xisbiga cadaaladda waxaa igu qasbaya inta badan ama haddaba keliya ayaka ayaa ogol inaan waraysto iyo dulmidiid jabhaddu ma ogolo cabdi maxamuud cumar laftigiisu ma ogolo inaan waraysto iyo kooxdiisu waan waraysan lahaa wasiiradiisa waxna waan weydiin lahaa taas waxaan jeclahay inaad fahantaan oo ma aha waxaan anigu doortay koox keliya inaan waraysto ama aan wax ka weydiiyo xaaladaha waddanka ama aan kala hadlo diyaar baan u ahay calanka anu waxaan u arkaa calankii hore kililka inay dadku ku midoobaan fikradda in badan baa la weydiiyey macalanka Ethiopia aad rabtaa macalanka jabhadaad wadaa macalan kale anugu fikir ahaan ka cabdirashiid ahaan waxaan qabaa dadka inay midayn karto calankii hore ee kililka laga bedelay xidigtii buluug ahaydna ay ku jirto iyo calaamadii muujinaysa Soomaalinimada ay ku dhex jirto ayaan qabaa in dhammaan dadka deegaanka uu midayn karo waa fikirkayga shakhsiga ah kuma qasbi karo qofkii calanka Ethiopia wata ama calanka ONF wata asaga u madax bannaan laakiin intii isfahmi kartaba ha is organize garayso calankay doonina ha qaataan sidaan horeyba u sheegay waxaan soo gelinayaa walaalkay maxamed ciise insha Allah taala
wax yar iga raalli ahaada waa uu soo socdaa insha allahu tacaala wuu soo gelayaa sidaan qabo aynu sidaa insha allahu tacaala aynu isku tixgelino bini aadamkuna sidiisaba qof macsuuma ma jiro qof walba wuu khaldamaa kulli ibni aadin khataa'uun wa khayru khataa'uuna tawaabuun qof walba wuu khaldamayaa waxaan sheegay baa laga yaabaa khalad inay noqdaan inaad ii sheegtid waxaan sheegay oo khalad noqda anay dhiirigelinaysaa inaan isa saxo is ilaaliyo in aad mataqaana wax walba soo qoray aad isha ku haysid halkaa cabdirashiido waa khalad warkaasu ma jiro anaa meeshaa joogay waxay igu keenaysaa inaan wararkiisii xaqiijiyo umana arka ceeb dhaliisha xataa si aan wax u wado iyo saan usoo qorayo ceeb uma arko waan accept garayaa qoraal kasta oo layga qoray xaqiiqatan waan akhriyaa hadduuna ceeb shaksi ahayn oo cay maarata cabdirashiid sidan baa tahay iyo waa oromaa ku dhashay iyo kan iyo haddaysan ahayn waan akhriyaa wixii iga macquulana waan ka qaataa waana isku dayaa weliba marar badan ayagoo dadku igu eedeeyaan qof walba inaan qanciyo waa isku dayaa xataa kuwa committeega kusoo qora waqti badan ba ha iga qaadato laakiin inaan qanciyo ayaan isku dayaa marka taana waa tusaale yar oo idiin sheegahayo waxa weeye qofku cabdirashiid ahaan ood aniga i taqaanid ood live soo fariistay waad i dhaliili kartaa fikirkaygina waad ogtahay anuu iga yimid aniga oo cabdirashiida buu iga yimid laakiin qof magac taana ha ku kadsoomina qof magacaada aqoonin qof kale iyo sawirkiisa fikirkiisa ha qaadanin qaar badan oo waxaan arkaa onerf iska dhigaya calamo kala saarta oo markaa dulmidiid caynaya ujeedada aanu shaki igagama jiro cabdiinu kuwaa ka dambeeyo ujeedaduna ay tahay dadka in la isku diro oo laga sii jeediyo cabdi bointigaas waa muhiim waxa weye dadku qofka aada garanayn hebel oo sawirkiisa iyo magaciisa uusan u saarnayn ha aaminin calanka jooxa waa lasoo wada saaran karaa sawirka nimankii u dagaalami jiray waa lasoo wada saaran karaa waxa weye aniga xataa sometimes I do mistakes waan sameeyaa khaladaadkaas oo kale laakiin ha rumaysanin qof aada aqoonin qofka uu yahay hebel hadduu yahay wax mataqaanaa oo afkiisa kasoo baxaya oo taqaanid oo ama mas-uul ururkaasa ama mas-uul kooxda mataqaanaa maamulaha rumayso qaado laakiin qof aada aqoonin oo uun magac meesha kuu yaallo quraan madmadooba allah ku yaqaana inaad qolo u qabsatid laftigeeda waxaan u arkaa mataqaanaa waa waxa isku dirka keenaya waana khalad marka taana ha laga taxadaro qofkii cabsanaya waan garanay cudurdaar buu leeyahay laakiin sida aan ku aqaano taageerayaasha jooxa ama onelf ma cabsadaan xaqiiqatan ma cabsadaan waxa weye magacooda iyo fikirkooda ayay ku dhiibtaan marka qof isqarinayo calankii jooxa wata ma aaminsan inuu jooxa yahay waa un ujeedo kale iyo barnaamij kale ayuu leeyahay laakiin qof onelfa oo isqarinaya ma aaminsani oo magaciisa la gabanaya onelftu magacooda ma qariyaan habeen iyo maalin bay ku hadaaqaan waynu naqaanaa dad la gabada maaha fikirkooda marka ninka intuu wax kala sheegto jaamac cali jaamac intuu la soo baxo kugu caayo ama jabhadda isagoo kaa dhiga ma aha jaamacaasu waa qof kaloo isqarinaya oo dana kana leh waa sida aan qabo oo fikirkayga ah marka hebel waad u raaci kartaa fikirkiisa waadna uga jawaabi kartaa laakiin qof aada aqoonin ha aaminin sidaan ku leeyahay ha aamin qof aada aqoonin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عبد الرشيد aad baa ku salaam walaal may maqashaa waan ku maqlaa si fiicanna waa lagu arkaa waad mahadsantahay walaal aqbalaada adiga aqbashay inaan ku waraysto xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia iyo wada hadaladii Nairobi iyo halkii ku dambeeyeen yaan wax yar kaa weydiinaya insha Allah tacaala iyo waxa dadka la quman waqtiga xaadirka ah su-aasha ugu horeysa haddaan ku mataqaana kugu bilaabo bal waxaad wax iiga sheegtaa xaaladihii ugu dambeeyey ee Ethiopia
iyo halka xaalku uu hadda marayo waynu ognaa xukun degdega in lagu soo rogay bal akhbaar dadka ka sii xaaladii ugu dambeysay hadda waddanka Ethiopia. walaal cabdirashiid horta waad salaaman tahay aad baan kuu salaamayaa waxaana kaaga mahadcelinayaa dadaalka gaarka aad wado waxaana kugu dhiirigelinayaa inaad halkaa kasii wado kolba qofkii ku ogolaada dadka jira ama ururada jira aad waraysato si cadaalad ah aanad u samirto dadka ku xaxaganaya adiguna qaladkii aad samayso aad ka cududaarato aad baan kaaga bogaadinayaa arrintaas arrinta kale walaalo waa runta weeyaan xaaladda Ethiopia way cakiran tahay waageed baryahanba kacdoona dadweyne ayaa ka socday oo ay hormuud u ahaayeen dadweynaha oromada iyo siyaasiyiinta oromada iyo xisbiyada oromada iyo kuwa amxaarada oo ku soo biiray ayaa hormuud u ahaa arrimahaasi kolba isbeddel bay ku keenayeen marka hore isbeddelay u keeneen qowmiyadaha oromada iyo xabashida goboladoodii way u hagaageen haddana markii ugu dambeysay xaaladda maanta taagan haddaan ku soo dhowaado waad og tahay prime ministerkii waddanka joogay ayaa iscasilay si lama filaan ayuu isku casilay arrintaasi waxay keentay crisis cusub waddanka inuu galo waayo iscasilaadiisi yaa bedeli lahaa oo yaa bedelaya ayay hadda xaalad adag ka taagan tahay waa la isku khilaafsan yahay waxaa hadda la soo sheegayaa inuu u badnaanayso oromo isku diyaarinayso inay qaadato amxaaradu inay u badnaan doonto inay oromada taageerto waayo waxa weeyaan isku dhawaashaa jira tigreegu isaga laftiisu walwal buu ka qabaa oo waxa weeyaan xaalad kay asa sidii umala zinaawi u dhintay ayay ku jireen muddo mar walbaba xoog iyo tala xumo iyo ismaqiiqid ayay ku jiraan marka xaaladan laga fiirsan oo military ma taqaana inuu waddanka qaato inay state emergency ku soo rogaan taas iyada lafteeda socon kari la ayay iyagu hadda ku mashquulsan yihiin marka xaaladda Ethiopia guud halkaas ay maraysaa aad baad u mahadsan tahay markaynu u soo noqono waxaa la dameerley dad la xeer ma aha inagu Ethiopia guud ka mid ma nihiisaynu isla wada ognahay isbedelada ka dhacayna saameyn badan deegaankeenu kuma yeelanin oo weli iska badaa wax kale iyo maxaabiis la sii daayo Ethiopia maxaabiistii laga sii daayay oon deegaankeenu ku jirin kuwo cusub ayaa la xirxiraa oo wiilkii xalay aan soo qoray oo ugu dambeeyey laguna xiray walaalkii Cabdirashiid baa sawir la gashay oo Facebook soo dhigtay haddaba wada hadalladii Nairobi jabhadda oo nalaf iyo Ethiopia niraahno laakiin Ethiopia hadda is haysato ma jirto kooxda Tigreega sii dhacaysa iyo Cabdi Maxamuud Cumar ay wada galeen halkee buu marayaa ama maxaa ka soo baxay wax rasmi ah markii laga tago xogaha hoose sideen u aragtaan idinku horta walaal xaaladda intaana gelin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo xaaladda Ethiopia ee guud baan ka hadlay laakiin xaaladda deegaankeena markaan ka hadlo iyadoo aad aragto saameynta weyn ee maanta dhacday dowladdii oo prime ministerkii dhacay xaaladii oo cakiran nin walba uu gurigiisa hagaajisanayo waxaad arkaysaa in maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa iyo maxaabiistii caadiga u xidhnaa ee kacdoonka laga xidhay kuwii argagixisannimada Ethiopia ay ku sheegaysay qowmiyadaha xabashida qowmiyadaha oromadu ay la soo baxeen waxaad arkaysaa in shacab weyne xitaa shacabkii muslimka ahaa ee oromada ahaa ama amxaarada ahaa jeelka weyn ee Malakwaki inay ku hortukadeen oo ay dadkoogii maxaabiistii muslimiinta ka xidhnaa xitaa lala soo baxay arrintaas waxaa barbar dhigaysaa markaa deegaanka Soomaalida waxa ay oromadu ay saa u samaynaysaa iyo xabashidu maanta xaalado badan oo isugu hagaagay ayaa jira innaga maanta ay seersanay oo badhkeen barka kala adoonsada maanta oromada dadka baarlamaanka ugu jira dadka wasiirada ugu jira dadka kililkooga oromada baarlamaanka ugu jira dadka madaxda waa boqolkiiba waxa la yidhi 10kii kasta ee nin 8 baa degree haysta ama master degree haysta xabashidana waa sidaasi la mid ah wasiiradoodu waa sidaasi la mid ah ciidankoogii iyo deegaankooga booliiskoogii sidaasi la mid ah waxa weeyaan waa dad ku midoobay inuuna midka kale adoonsan qoomiyadooda inuuna midka kale xidhin bal inay iyaga oo afkaar kala duwan aaminsan iyagoo siyaasado kala duwan haysan inay isu hiiliyaan oo soo furtaan innagana the opposite baa socda maanta jigjiga waxa ka socda iska daa in hal qof la soo saaray waxa socda in dad kale la xidhayo shalay waad arkaysay nin siyaasi oo xildhibaan hore soo ahaan jiray oo dadka soo qaxay ayaa VOA waraysi siiyay oo VOA intay soo wacday ay tiri deegaanka rabnaa inaan wax ka wacno walaalkeen waa xirsi hooyadii oo 80 jir loo tagay oo la leeyahay 200 oo kun qaado wiilkaaga cay hadal marka waxa weeyaan waxa inaga inagu dhacay oo ay maanta hal maxbuus la soo bixi laanahay 1% xitaa xurriyad dadkeena ma haystaan ay ku hadlaan
culumadii iyo dadkii diinta ayaa lala dagaalamay kuwii dhaqankaa lala dagaalamay aqoonyahankii baa waddanka laga soo caydhiyey baarlamaankeenii kii federaalka ku jiray iyo kii deegaanka joogayba waa baarlamaan dumar iyo dad hayb lagu keenay iyo qabiil iyo waxaan xamaalin u badan askartii iyo dadkaasi waa dad yani la dhalo rogay oo kolba cid loo isticmaalayo marka hore dadkoogii lagu baabiiyey haddana qoomiyad kale oo oroma cadowgeena aynu oromo ka hortagna ku jira marka xaalad dhalanteeda shacab ku jira ayaa horta xaaladda deegaankan dib ugu noqonaya walaalo su-aashii dib baad ii weydiinaysaa kale aan kaa dhex galay haye waxaan jeclaan lahaa bal sida aad u aragtaan ka xisbi ahaan inkastoo guddoomiyaha xisbiga weydiiyey wadahadaladii nairobi iyo sawirka ay bixinayaan bal inaan wax kaa weydiiyo inta kale waxaan kaloon ku dari lahaa qodobkii aftida ahaa ee lagaga wada hadlay nairobi dastuurka etoobiyana ku jira qodobka 39aad ma saxeexi karaan ama awood ma u lahaayeen ay ku saxeexaan qoladii markaa halkaa joogtay ama wadahadalka etoobiya ku matalaysay amaba qoomiyadda tigreega hadda waktigoodu sii dhacay waxaana taa ku dari lahaa 27 sano ay waddanka haysteen oo xoog mataqaanaa awood aad u badan ay ku haysteen hadday ina siin waayeen ama ay noo ogolaan waayeen ay ka tashi iyo afti ayaka oo laga xoog batay oo maaragtay la muquuninaya hadda awoodooduna aad ay hoos ugu dhacday suurtagal ma tahay inay ina siiyaan oo inoo ogolaadaan qodobka 39 iyo aftida cabdirashiid walaal horta waad salaaman tahay waa qodob xasaasiya waxyaabo badan waan kuma fogaanayo waayo maadaama qodob xasaasiya yahay xilli xasaasiyana uu kusoo hagaagay waxyaabo badan waxay noqon doontaa li taariikh inay ma taqaanaa la xusi doono taariikhdan sideedaba qoomiyad ahaan inagu halkan kusoo jirna qaladaad badan oo inagu aan gallabay ka mid ayaa jiri karaya waxa weeyaan taariikhdu sideedaba waa shalay iyo maanta iyo berri shalay waxaynu samaynay waa inaynu cashar ka baranno maanta waxa taaganna waa inaynu wada tashi iyo garasho caqli la oo ilaahay tii ma taqaanaa saxda ayd inaynu qaadanaa berrina inaynu qorshe u lahaana ayaa wanaagsan haddii wada hadal lasdhahaba lasoo hadal qaadaba ani ra'yigayga waxaa kusoo dhacaya horta wada hadalka bal horta taariikhdiisu muxuu yahay dadkan hadda maanta halganka dhaxlay ee halgankii soo jireenka ahaa waday ee kumanaanka qof ay u dhinteen ee malaayiinta qof loo qixiyey ee intaasoo kun ay xabisyada ugu jiraan ee kii WSLF ka soo farcamay ee kii sayidka ka soo farcamay ee kii axmed guri ka soo farcamay wada hadal marka lasoo hadal qaado waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya kii 1994kii jabhadan lala galay ee qabri dahar ka dhacay ee mala zinaawi uu soo duulay maamulkii berigaa jiray uu joogay intii gudaha ku hadhay qoladii duurka gashay ay joogeen waxaa hogaaminaya dadka duurka ka soo galay cadaani hirmoogaa hogaaminayo maanta joogo halganka ku jira bashiir cabdixasan baa hogaaminayay maxaa markaa wada hadalka 1994kii maxaynu ka dhaxalnay waxaynu ka dhaxalnay markuu dhammaaday in ay onlf splitter group ay ka soo baxday oo bashiir cabdixasan oo onlf kala sheeganaya oo aadan waris la socdo urur kale la sameeyey leega halkaa ka soo galeen dadkeenni inaanu waxba u soo kordhinin xabadiina xaggii kasii socotay waxaa kaa ku xigay 1998kii wada hadal kaloo la galay isagana wada hadalkaa isagana maxaynu inagu ka dhaxalnay waxaynu ka dhaxalnay ninkii wada hadalkaa hogaaminayay wafdigii hogaaminayay allah u naxariistay geesigii weynaa deeq cabdiraasin iyo dadkii la socday in la dilay oo la shirqoolay oo qaarna dhaawac lagula tegay isagiina la dilay maxaa markaa waxa weeyaan halaag zero baynu ka dhaxalnay waxaa inoogu xigay 2012 wada hadal kaloo la galay kaasna maxaynu ka dhaxalnay waxaynu ka dhaxalnay isagana in meeshii uu wada hadalku ka dhacay oo la yiri waa meel amni oo waa Nairobi ergo wada hadalka ka mid ahayd oo qayb ka ahaa laba halgame laga aftuubay Nairobi dhexdeeda hadcad laga aftuubay oo lala tegay taasna waxa way inoogu meena soo kordhinay maanta maxaa markaa wada hadalkan laftiisa maanta maxaynu ka dhaxalnay waxaynu ka dhaxalnay oo ii muuqda aniga dabacsanaan baa muuqata dabacsanaanta muuqata waxa weeyaan 2012 waxaan taagnayn mawlid haayir oo nin ah siyaasiya oo deegaanka ka soo jeeda beel ahaanna aanu ogaadeen ahayn in la diiday in lala fadhiisto oo la yiri la fadhiisan mayno maanta waxaa dabacsanaanta timid waxa weeyaan kow in lala fadhiistay nin deegaanka rogay oo mujrimka ugu weyn ah oo maanta ina baabiiyey oo isaga la'aantii maanta qayrkii inaga reebay oromo maanta waxa u hagaagsan waxa uu hagaajiyay dadkooga gudaha jooga maanta waxay naga xumaan halgankii loo soo baaba'ay hal bacaad lagu lisay inuu noqdo laga yaabo cabdiile baa hormuud ah waxay keentay in ninkii lala fadhiisto waxay keentay oo aan ka dhaxalnay
in dadkii masaakiinta ahaa ee soo qaxay agoonteenii meeshii jajabkeenu yaallay meeshii dadkii soo qaxay in ninkii la dul keeno oo ninkii uu ku dul dhaanteeyo oo hero welcome uu helo oo lagala hadlo masiir umadeed waxa weeyaan arrintaa walaalow waan ka didnay oo waxay keenaysay daabacsanaan bay keenaysay nairobida lafteeda ayaan wada hadal inay meel amniya tahay iyo inay kale ay shaki ku jirtaa waayo waxa weeyaan anuu maalin dhawaataa nairobi tegey nairobi markaan tegay airportkaan socday ama aan ka soo baxayay waxaa la tusaayay ninkii halgamaaga weyn ahaa ee cabdilaahi la dhihi jiray ee dadkii halgankan hurmuudka u ahaa waa meeshii intii lagu afduubay la qabsaday meydkiisi lagu soo tuuray jidkaa weyn ee marayso ayuu ku yaallay isagoo jawaan lagu soo tuuray 3 cisho 5 cisho markii la meydkiisa laga helay waxa weeyaan waxaa shirkan uu kulmiyey dad badan oo wajiyo qabiil leh oo siyaasiyiin leh oo dhacdooyinkan foosha xuna ama dad la dilay ama dad la afduubay ama dad saa la sameeyey meel ka soo gelaya waxa weeyaan dad controversial oo ma taqaanaa sida hadda sheekh ibraahim dheer oo kale ayaa ka muuqday marka siyaabo badan marka la dhaho wada hadalkan sidiisaba optic ahaan markaad eegto muuqaal xun buu bixiyey oo picture xun oo wuxuu bixiyey dad ayna waxba isaga dan 15 ahayn dad hayb qabiila uun wadaaga laakiin aana isku fikirba ahayn dad xitaa hadday qabiil ahaan isugu wada yimaadeen jeelogaadeen dad ka soo dayn kari waaye oo cabdiile ku qancin waaye inuu jeelogaadeen ooda ka qaado inuu bashiir maxamed maqtal iyo qalbi dhagax iyo dadkii soo daayo yani optic ahaan beena ayuu bixiyey picture beena ayuu shirkaasi bixiyey factiguna been buu ahaayo waxa weeyaan annaga waxaan sheegaynay oon ka dignay war maanta Ethiopia way burbursan tahay prime ministerku inuu tomorrow iscasilaa laga yaabaa dawlad executive oo shaqeysa ma jirto waxa weeyaan wiilashan ninka la dhaho general gabre ee sirdoonka federaalka aysan jirin hadda Suudaan loo bedelay iyo kan kale ee Soomaaliya rogay ee labadii Soomaaliya meel taagan balashira waxa weeyaan iyo cabdiilay waxa jiray dhalinyaro ururka ka tirsanaan jirtay oo carooday oo isbeddeldoon la baxay oo iyaga laftooda la kulmay oo marka iyagu recruit gareeyeen la hadlaayeen waxa loo sheegayay waxay dhaayeen orama nagu soo socota 50 kun ba cabdi saas ku labdheer la xawsanay 50 milyan oo orama ay qabsanaysa jigjigay qabsanaysa aynu isku biirno kaalaya waxaas dhalinyarada waa la caay waxa lagu yiri ma taqaan sirdoonkiiba qol madow kula shireen kanay kula shireen markaan anagu maqalnay the same thing in halgankii ururkii matalaya lagu sameeyo waanu ka dignay kamaanaan digin wada hadal Ethiopia oo daacad laga yahay in lala galo laakiin waxaan niri waa inuu wada hadalkaasi noqdo wada hadal waaqiciya oo wax inoo soo kordhiya oo sida kuwii hore inaga khasaare inaan kala kulmin marka maanta walaal anagu ku dheeraanay taariikhda xusi doonta taariikhda laga baran doona laakiin shirkaasi abtig ahaan muuqaal xun buu bixiyey oo xaqiiqada ka fog dad aan qabiil ku midaysnayn oo hal qof aan jeelogaadeen ka soo jeedin ayaa laabta isa saaray safka isa saaray waxay kaloo bixiyeen wax fact aan ahayn oo xaqiiqada ka fog dastuur baa laga hadlay baa lagu leeyahay dastuurka gabre iyo ma taqaana ka hadlayaan muxuu yahay cabdiile uu saxiixi karayo ma dastuur baa horta dastuurku sidiisaba ay ka tashi waa narkeeyay in adiga iyo activist Mustafa Umar dad badan ay indhahayeen ay ka tashigaad ka soo horjeedaan ay ka tashigaad diidantiin horta miiskaas waxa ceeb oo fadeexada qofka maanta dadkeenu ay ka tashi horta ma fahansanahay muxuu yahay ay ka tashigo dastuurka Ethiopia ma fahansanahay dastuurka Ethiopia ma article 39 kaliya ayaynu naqaanaa horta dastuurka Ethiopia ma ogol yahay in ayida la dilo oo intaad hadasho Facebook ka hadasho ayida la dilo dastuurku ma ogol yahay in Mustafa Umar walaalkii la dilo oo walaalkii Facebook ka hadlay dastuurku ma ogol yahay in gabadh la kufsado dastuurku ma ogol yahay in new police intuu gabadh u tago uu qabo markuu uu dhaho waan ku nacay walaashaada yar baan ku guursanaya uu tii kala ku dulqabto dastuurku waxa ma ogol yahay dastuurka Ethiopia ma ogol yahay inaynu sadoonsano marka horta marka horeba waxaanan la isku daalin baa jira meel cabdiile uu fadhiyo oo isagu wafdiga uu hogaaminayo gabra uu fadhiyo mid kale oo South Sudan uu fadhiyo dawlad sii dhacday oo gobolkeedii dhacay oo prime ministerkii dhacsan yahay oo maanta lagu murmayo yaa xukun qaadanaya yaana qaadanay kuma murmi karno ceeb bay nagu tahay inaan ku muranno wax saxiixa la waayay aftiba ma taqaana la isku diiday waxaas oo walaal waa fact wrong ah taariikhdana xusi doonta waxayna inaga mashquulinaysaa inaan dood aan maanta inoo oolin intaynu ka hadli lahayn maxaabiisteena inagoo midaysan intaynu ku midoobi lahayn war cabdi ila hadhaco waa nin lagu adeegto la adoonsanayo qofka dadkii aqoonyahanka wadanka lagu celiyo kuwa xidhan ee jeelasha ku jira ha laga soo saaro wadanka kuwa ha loo dhiibo qof aan dambi ka gelin dadkiisa
qoomiyad kalena aan laga horgeynin oo cadaawad kala samayn ha lagu sameeyo intaynu waxaa ku midoobi lahayn ba waxaynu dhahaynaa ma taqaana cabdirashiid baa wuxuu kasoo jeedaa aya ka tashi dulmadiid baa waxa weeyaan cabdiile unbay ku mashquulsan yihin waxyaaba un dhela roga waxa weeyaan ani maanta waxaa murugaya markaan arkay hero welcome-ka loogu sameeyey meesha halgamayaashii weynaa lagu xasuuqay oo cabdilaahi tiiba kamas dhabar meesha siyaasiyiin waxyaabaha ku logla ay ka dhex muuqdeen meesha ay ma taqaanaa maatideennii soo qaxday ay joogeen in ma taqaanaa sawir dadkaasoo dhan kulminaayo oo fadeexada uu meesha ay nooga soo baxo in dhinaca kale ninka propagandaystaha ah ee idaacadihii haysta ee tviyadii haysta uu meel kastaba igu sawir uu la dhacay oo xitaa dadka u tegey islaam waxaan waraystay dhahaysa ummadii oo dhan baa u tagtay oo cabdigii geeyana maxaa adiga ani lafteeda waan u tegi lahaa bay tiriyo wiil aan eedo wahay baa xidhan oo iisoo daa baan dhihi lahaa marka dad badan oo waxaba u tegayba nairobi oo dhan waxa la dad baa ka xidhan oo jeerogaadeen kaga jira oo bal cabdiyo dad noo soo daa wixii oo dhan wiilkeennii waynu la hadalnay waana abuur baa ka horreeyaa la yidhi intaasoo isku beel ay yihiin oo siyaasiyiin ah oo geeska afrika degaa u wada yimid maanta hal qof jeerogaadeen may nooga soo baxay maanta bashiir mukhtarjeel may nooga soo baxay qalbi dhagax may nooga soo baxay teersa may nooga soo baxay dhalinyarada aqoon-yahankee wada xidhan ma ka soo baxeen walaalayaal arrintaasi ceeb bay nagu tahay taariikhdii halgankeennana ceeb bay ku tahay intaasaan kaga baxayaa taariikhdoon baana xusi doontaa waxaan jeclaan lahaa inaan fikirka dadka kale markii laga tago iska saxabatunka iyo waxaan jirin laba qolo ayaa inta badan taageersanaa wada hadalka qolo ka beel ahaan bay u fiirinayeen oo waxay yidhaaheen beesha ogaadeen ayada isdishay dhexdeeda liyu booliiska iyo onelfo waa ayaka inay beeshaasu heshiiso deegaanka soomaalida degta oo ayakoo kaashanaya walaalahooda soomaaliya dega iyo kenya dega waa arrin wanaagsan oo lagu farxo marka ayaku dhinac qabiil bay ka eegayeen dhinac mabaadii kama eegayn waxaa jira dad ayakuna taageersanaa oo dhinac mabda' ka eegayey oon qabiil ka eegayn waxay ayaku lahaayeen etoobiya way burburaysaa xaalad kala guura baa lagu jiraa jabhaddu gudaha ha gasho cabdi waxay rabtaba ha u sheegtee oo etoobiya gudaheeda iyadoo jabhaddu ku jirto ha ku dul burburto halkaana xorriyadda aan ka halanno oo xorriyaddii halkaas aynu ka qaadan karnaa inagoo gudaha etoobiya joogna ay nagu dul burburto cabdina aynu waanino madax aynu u salaaxno aynu sasabno nidhaahno walaa wiilkanagii baa tahay maaragtay adiga ayaa na hogaami oo xornimadii nagu hogaami oo aynu la hadalno wiilkeenna oo aynu gargaraacanno xisaabtankana aynu dib u dhiganno waa loo fikir oo in laga dooda aniga aragtidayda labaduba ay mudan yihiin bal waxaan kugu horraysiinayaa kan hore beesha ogaadeen inay midowdo qoladaa mise maxaad ku diidan tahay maxamed ciise ama ood oga soo horjeedaa horta cabdirashiidow waad soo koobtay waa arrin fiican waxaynu aaminsannahay annagu urur ahaan waa anagii nidhi ha la soo celiyo oday dhaqameedyadii sharafta lahaa sharaftoodii ha loo soo celiyo ha loo soo celiyo aqoon-yahanka sharaftoodii dadku ha midoobaan oo afkaar iyo walaala aynu istayna ha lagu midoobo in dulmiga la wada diido horta haddii la helo maanta beel kasta oo midaysan ama ogaadeen ha noqoto ama cid kastaba ha noqotay guul usoo hooyata bay ahaan lahayd soomaalida beeshan ogaadeenka la dhaho ka dilaya maanta waa ogaadeen kan la dilayaana waa ogaadeen maanta beel kasta oo ma taqaanaa shirtana intaasaa loo sheegayay haddii markaa dadka soomaaliyeed ee ku daalay ee iyagu laftooda aamusan ee la degan ay dhibaatada ka daayaan oo midoobaan horta waa arrin fiican laakiin waa inaan xaqiiqada isku sheegno waxaa jirta oraahu malezinaawi waa hore yiriyo wuxuu yidhi o b d o bakhtaya nasiibka haddaa soo qaatay lotariga oo aad korka ka fiiriso oo waa o b d o laakiin haddaad xoogdo o elf baa kuusoo baxaysa buu yidhi ya o elfta oromada kuusoo baxaysa lama kala saari kara buu yidhi waxa weeyaan oromadu 2005 markii xabashidu ay waddanka qabsatay doorashadii ku guulaysatay malezinaawi iyo tigrooga oramaday soo kiciyeen oromada ayaa la soo dhaweeyey taasi waxay keentay in aqoon-yahankoogii waddanka ku noqdo in la isdhex galo in maanta la kala garan waayo ururkoogii mucaaradka ahaa iyo koogii gudaha jooga waayo isku afkaar bay noqotay haddii markaa taa laga sawir qaadanayo oo la leeyahay maanta waayo sawirka baxaya ee shirka laga bixinayo waxa weeya nairobi ogaadeen isku wada yimid oo haddii loo tariyo karka xagga laga eegana cabdiile baa kuu muuqanaya oo shirkan oo dhan isagaa watay oo nairobi markuu jigjiga joogay uu jid waaqiyo dadka beesha jigjiga kacsan khudbadihii adeerkiisa shaqaalaha u qabtiyo anu ogaadeen yaa wax iga qaadaya ogaadeen baan ahay
narrative noocaas ayaa ka socday waad arkaysa social mediada narrative-kii baa ninka ururka onalef ku jirana loo dhiibaayay oo ma taqaanaa waan midoobaynaa ogaadeen baa midoobaya haddii midoobaan cidna waxba kama qaadayso marka lottery haddii la xoqana marna onalef noqonaya marna cabdiile noqonaya marna ogaadeen noqonaya marna aan noqonayn oo feega ayaa inaga ma taqaanaa arrintani ay noo keentay waxa weeyaan xaqiiqadu walaalo waxa weeyaan waxaynu rabnaa inaynu midoobno laakiin waxaan ku midoobi karaynaa midnimadeennii nin mujrima iyo dad dulminaya oo iyagii iskuumaysanaya oo etoobiyada kale dhan oo iscunaysa maanta ninka jeel ogaadeen dadka ku xidhaaya oo dadkii ugu xigay ee hadda haddii xitaa qabiil loo hadlo jid waqweyn oogu xigay halkaad soo taagan marka qabiil ahaan loo hadlo kuwii baa lagu gurayaa maanta xabiska kuwii kale ee isla beesha ogaadeen ahaa baa lagu guraya kuwii baa weli la kufsanaya ka waxaa samaynayana isla nin beeshii u dhashay weeyaan marka hadday midnimadu ay run tahay waxa weeyaan waa inay noqoto iyadoo igu sawir aan ahayn iyadoo oona halgan weyn iyo masiir ummadeeda weyn oo ummado badan ka dhexeeya la gelinayn in ninka la dhaho war dad technicraada oo ummadda u dhiib xukunka isaga tag xabiska ka soo daa waxyaabo badan oo tijaabooyina baa jira laakiin waxani walaalo waxay ahayd fariindan dabagaala ah waxa weeyaan waxa la diraya ee faktiga ayaa ka duwan xaqiiqada meesha taalla ogaadeen midaysan ma taallo qabiil soomaaliyeed oo midaysan ma jiro waxa weeyaan cadhada ina haysa oo murugada lana waxa weeyaan cabdirashiidow 30 sano kastaba 20 sano kastaba fursad bayna soo martay halkankii ugu dambeeyay WSLF dhergigii waxa weeyaan malaayiin bay naga dhimatay malaayiin baa qaxday dagaalkii ugu cuslaa baynu galnay ilaa ma taqaanaa harar baynu gaadhnay dhulkeena 100% baynu xoraynay hal mar bay niyad jab inugu dhacdaynu khasaarnay midhihii ummad kala guratay hadda ummaddeenu halgan adag bay gashay qaar badan oo aan jecel ah ku dhintay qaar badan baa loo xidhay qaar badan baa la sameeyey 30 sano 20 sano ayaynu hadda xabad ku jirnaa iyo kalayaa intuu Tigreegu joogay maanta oo xaalad Ethiopia isbedel raacsan tahay waxaan anu islaahay 1991kii baynu ka xunnahay waayo nidaamkan hadda ugu jira oo cabdi ilay hogaaminayo ee 10 sano ina haystay waa nidaam qabyaalad ka shaqeynaya waa nidaam inaga dhexdeena cuqdad ina kala dhex dhigay waa nidaam midba midka kale ugu dhow isku diray waa nidaam inaga aynu sii kala ilaalinayno waa nidaam inaga buuq aynu ku jirno marka waxaan isleeyahay taasaa maanta u baahan wax ka qabasho waxa weeyaan war maanta fursadda taalla waxa kaliya ku wadaagi karaynaa waa inaynu u midoowno inaynu dulmiga diidno inaynu u midoowno dulmiga ninka ugu weyn ee aabaha u ah inaynu meel uga soo horjeedsano ku dhahno waan ku diidno oo cabsida jabino aad baad u mahadsantahay maxamed ciise waxaan jeclaan lahaa dhaliil xisbigiina la idiin jeediyo insha allah taala dulmidiidna way ka hadlaan oo live bayba soo galaan waxaad tihiinun dad facebooka ka jira iyo dibadahan oo iska qaylqayliya wax saameynana aan gudaha ku lahayn ka xisbi ahaan qoraallo aad facebooka kusoo qortaan ma wax ka badan baad samaysaan oo dadka la isugu keeni karo lagu midayn karo mise waxaad u tihiin xisbi facebook ka dhisan والله هو سؤال في عن عبد الرشيد وانا دعايتها رقيسك dadkeena lagu mashquuliyay maanta waxa weeyaan waa inaad ogaato xilliga lagu jiro waxaan ku jirnaa technology ma taqaana waqti adduunka uu ma taqaana stage kan marayo social media wada aragtaa waa meel bulshadu ay ku kulantay baa lagu leeyahay qoomiyadda oramada maanta wada aragtaa waxa ay ku halgamayso maanta wada aragtaa madaxweynaha waddankan Mareykankan jooga madaxweynaha dhan ay haysta Donald Trump ba maanta dhan la dhaha Twitterka iska dhig markaas u dhaha Twitterku waa hubka kaliya lagu doorteen haysto marka waxa weeyaan waxaan u arkaa dacaayad raqiisa oo ah nin maanta dooda ninka kugu leh Allah u naxariisto Sheekh Deeq oo kala ma aha qalbi dhagax ma aha waa nin 30 sano dibadda jooga oo Sweden jooga oo UK jooga ba wuxuu ku leeyahay ma social media ba fadhida oo adigu ma dhaawac ba tahay marka maxaa ku fadhiisay London iyo Australia iyo maxaa ku fadhiisay ma qoriga qaadato dagaalantay social media waxaan qabnaa waa aalad casriya oo ummadda maanta ma taqaana ummadeena hadaan positive u isticmaalno aan wax kaga bedeli karno ummadeena ku kicin karnaa ummadeena runta ugu sheegi karaynaa ummadeena ku wacyi gelin karaynaa ummadeena kaga madax banaaneyn karnaa wariyaashii ma taqaana u shaqayn jiray idaacadaha caalamiga isku bedelay ESTV ee wariyaal u shaqeeya oo ummadeena ku karbaasho qalbi karbaash ku siiya ummadeena xaqiiqada jirta ugu sheegi karaynaa waxa weeyaan marka ma aha waa dacaayadun iska raqiisa social media waan ka shaqaynaynaa ururkayagu waxa weeyaan waxaan u sameeynaa waxa weeyaan inaan xaaladan degdeg ah ummadeena ay kala qaybsan tahay ee qabiilka loo kala fadhiyo inaan ummadeena ku midayno inaan dadka aqooyahanka ahaa ee halgankan ma taqaana hagraday ee ka fadhiistay
inaan boardka ka jafno oo soo kicino inaan culimada soo kicino inaan dadka odayaasha iyo dadkii dhaqameedka inaan soo kicino inaan ummadeenna jihayno waxa aan ku midoobi karayno ee aataara sida calankii kililkoo kale ee hore aan usoo qaadanay sida ma taqaanaa waxyaabaha aan tusi karayno inaan waxyaaba badan u bislayno ayaan ururkan u samaynay waxaasoo dhanna waan ku wada jirnaa laakiin walaalo waa iska dhagax tuurka ma taqaanaa socda ee aan meel la haysanin ma social media dhex fadhidaan waxaan arkaya idinka iyo dulmudiidba VOA-da oo aad laydinka waraysto ama barnaamijyada ka qayb qaadataan xaaladda Ethiopia lagaga wada hadlayo hadday dood ahaan lahayd iyo hadday waraysiyo ahaan lahayd maxaa u diiday BBC Somali inay idin waraysato ama ay axsaabta mucaaradka ku ah Ethiopia iyo xukunka cabdi inay waraystaan maxaad isleedahay BBC Somali way u diidan tahay inay waraysato qof Ethiopia ka soo horjeeda wallahi horta cabdirashiido waa su'aal walaalo fiican dadku waxayna ogeyn ummadda maanta dadka Soomaaliyeed annagu siiba Soomaali galbeed haddaynu nahay horta dhibaato weyn baa laynoo geystay waxaan maanta qaataana calaacalka hanka maanta yaraaday dabacsanaanta ummaddeena ka muuqato wax iska dhacay maaha especially last 15 years si xun baa laynoola dagaalamay wax kasta wuu sameeyey ma taqaanaa cadowgeenu qabiil buu isticmaalay wuxuu isticmaalayaa lacag waalan buu isticmaalayaa cabsigelin buu isticmaalayaa haddii markaan tusaale usoo qaato idaacadahan aad ka hadashay waxa weeyaan wuxuu u dhaqmay shinnida oo kale haddaad maanta shinni rabto oo shinnidu malab bay samaysaa malabka waa wax fiican haddaad rabto inaad malabkaa u dhawaato waxa weeyaan waxa keliya shinnida aad ku samayn kartaa haddaad boqorka ka qabsato shinnidaasi way iska celin kartaa way kaa carari kartaa hadday laakiin boqorkeeda haysato maanta uma dhawaan karaysid waxa weeyaan nidaamka maanta cadowga inagu ah Soomaaliyeed waxa la isdhihi karayaa boqorkii buu ka qabsaday wuu cabsi geliyey qabiil buu ku kala furfuray lacag buu ku kala furayaa waxaad arkaysaa nin u shaqaynaya maanta cabdi ile wasiir u ah oo dulmigiisa ka sheekaynaya laakiin hunguri lacag uun qaadanaya waxaa laga yaabaa adu markaad hadda hadashay inaan lacag maanta lagu soo sameeyo idaacadahan marka aad sheegayso waxa weeyaan dadka halganka waday halganka waa looga baxay ummad midaysan maynaan noqonin waxaynu u sacabutumayna kayna dilaya kayna dullaynaya waxa weeyaan ummaddeena maynaan meel uga soo wada jeedsan dad kala faraaruqsan baynu keennay ummadahan oo dhanna haddaadan iska waabinin waxa weeyaan adaa lagu soo kala tegayaa marka idaacadahan saamayn buu cadowgu ku yeeshay qaar lacag buu siiyey oo waa shaqaale ka mid a qaar wuu cabsi geliyaa oo nin waxaad arkaysaa weriye oo isaga laftiisa waxaa la dhahayaa walaashaa baa la kufsanaya ama walaalkaa baa la dilaya ama suldaankiisii baa ula soo hadlaya wuxuu dhihi haddaad hebel waraysi ka qaado ama xaaladda Ethiopia aad ka hadasho waxaana lagugu samaynaya waa across the board waxa weeyaan hargeysaana Ethiopia waxba looga sheegi karin muqdisho looga sheegi karin xaaladda Ethiopia sensitive bay idaacadahan ka tahay annaga marka waxaan hadda wadnaa qof kasta oo ma taqaana ummadayada ma taqaana dambi ka galay hagarlaaday idaacad caalamiya u adeegsaday inuu daan dabagaalanimada uu ma taqaana sameeyo xilliga abaaraha waa darkiisa wadankeena waa la caaburiye abaar lagama sheekeynay xilligii daacuunka waa darkiisa daacuun halaagi ummadii oo dhan iyagoo ka socota lagama sheekeyn karin lagama soo duubi karin maanta waad aragtaa waxa weeyaan TV-yo horumar iyo barwaaqo iyo biyo qasabadaha ka daadanaya iyo madaxweyne la leeyahay ma taqaana sayidkii iyo sayidkan mid uma kala dhaxay allah oo marna beel laga dhigaayo waxaasoo dhan baa ayay dad ka qayb qaadanayaan wariyaal caalamiya ka qayb qaadanaya hay'ado caalamiya ka qayb qaadanaya dalal baa ma taqaana new police-ka ma taqaana fangareeyo international community oo inala degan urur ahaan iyo shacab ahaanba shaqooyinkaas oo dhan baa inoo yaala inaan wax ka qabanno waxaan aaminsanahay inaan derbiga idaacadaha caalamiga ay nahagran jiray aan jabin doono waan u soo jeedsanay ninkii wariye ee saamayn ku yeesha inuu ma taqaanaa been abuur ka shaqaynayo inuu daandabangaalanimada wado wallahi talaaban ka qaadaynaa uma sii socon doonto waxaan kaloon hirgelin doonaa oon dhiirigelinaynaa oon ku taageeraynaa walaalada dhegaysanayana aan ku taageeraynaa cabdirashiid daldaloolkiisa waxba ha ku mashquulina wuu dadaalayaa dadaalkiisa ku caawiya TV-gan intaa yaraynu hadda ku hadlayno ku caawiya war xaqa aynu ka hadalno waxa jira aynu ka hadalno waxa ina kala qaybinayeenaan ka hadlin waxa weeyaan maanta waxaa ciil qaba walaalo afkaarteeni dhallinyaradeenni waxay ku mashquulsan yihiin baa dhibaato qabta marka waxaas aynu baabino hawlahayna sugaya ee waaweyn ee maxaabiisteennu ay ka mid tahay ee media lack of media ayna haysata maanta bal inta qof oromo maanta TV-yada u shaqaynaya arag TV-ga oromada ee deegaanka oromada maanta dhaanta kama socoto waxaa laga waraysanayaa qof xag jir ah oo ma taqaana ayaa adhisaba jooga hadlaaya waxa weeyaan nin baa intuu muqdisho ka tago oroma
ayuu adhisaba dr mirara ku qaabilaya dr mirara waxay ku leeyihin ogolow 10 milyan inay dhimato si ay 30 milyan ee soo hadha ma taqaanaa u haro innagana wiilkii siyaasiga ahaa ee waddanka laga soo cayriyey baa v o eda markuu ka warramo hooyadiiyo 80 jira loo hanjabaya oo laleeyahay cay waa arrin waa nasiib daro aad u weyn waynuna wada aragnaa dhibaataduna waa saad sheegtay waan kula qabaa dadkeena maskaxdii baa laga qabsaday ayakaana isu muuqda inta badan oo xin aan garan waayey hebel hadduu hadlay ama uu waxa uu karti sameeyey ama dadaal ummadaha kale waa laisku dhiirigeliyaa qofka walaalka ahna wuxuu kaa yaqaano inta badan waa looga dambeeyaa oo qofkii luqadda ingiliishka yaqaano waa inaad ingiliishkii maarata haddii wax lagu qorayo aad ooga dambaysid kii xabashi yaqaano kii maaragtay waddan kale oo dana inaga xiran tahay yaqaana intaba waa inaad maaragtay aad ku ixtiraamtaa oogana dambaysaa laakiin dadkeenu inta badan waa dhaqan gumaysiga iyo cadaadiska faraha badan oo nagu abuuray baan u malaynaya soomaali ahaan soomaalidoo dhanba guud ahaan waxa qofka kale ee wax wanaagsan samaynaya in la hor istaago oo la caburiyo waa iska dhaqan bay noqotay ama dacaayad laga firiyo oo la caayo oo maaragtay sumcadda laga dilo ama arrimihiisa brefatka ama asaga shaksi ahaantiisaba loo weeraro waana waxyaalaha aanu istaagay anugu shaksi ahaan iyo dad kaloo badanba inaan dadka ka wacyigelino oo wacyigooda siyaasiga iyo garashoodu korbal aynu u yara qaadno oo meesha hoose aan ka soo qaadno ay joogaan iyo hebelku mashquulka ugu dambayn bal dadka maxaad u sheegi lahayd ama kula dardaarmaysaa ku daawanaya maxamed ciise adoo mahadsan wallahi walaalo waa su-aal wanaagsan weeyaan anugu maanta runtii waxaan la hadlayaa dadka ku agoomoobay halgankan dheer dadka ehelkooga xabisyada ay ku jiraan waa un qayb halganka ka mid a dhibaatooyinka usoo gaadhay waxaan la hadlayaa dhalinyarada waxaan la hadlayaa dadka aqoon-yahanka dadka intellectualka ah intaasaan anugu maanta aan ra'yi usoo jeedinayaa walaalayaal maanta waad aragtaan xaaladda aynu taagannahay waxa weeyaan xaalad mar walbaba markaynu u baahannahay inaynu midhaheennii guranno inaynu halgankeennii maataqaanaa kumanaanka kuna aynu usoo baaba'een inaynu midhaheenna guranno ayaynu kala yaacnaa waxaad aragtaan maanta dadkeennu waxa ay ku mashquulsan yihiin dhallinyaradeennu waxa ay ku mashquulsan tahay bal maanta arag waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa waktigii dadkii dowladdii islaamku ay waddanka maanta spain loo yaqaanay andalus ay haysan jireen yaa boqorkii romanku dad buu u diray wuxuu yidhi waxaad soo fiirisaan oodaad eegtaan dhallinyarada waddanka spain ku nool ama andalus ku nool ee dowladda islaamka ku hor nool maxay ku mashquulsan yihiin waa loo yimid waa la arkay waxaa la yidhi buug akhris iyo wax akhris bay ku mashquulsan yihiin iskaga yimaaduu yidhi mar kaluu haddana soo diray maxay ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin baa la yidhi farda fuulis iyo tartan bay ku mashquulsan yihiin inaga daaya buu yidhi markii saddexaad buu soo diray maxay ku mashquulsan yihiin buu yidhi wuxuu yidhi waxay dhaheen waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo gabayo ayay tartan ugu jiraan wuxuu yidhi hadda ku dhufta marka hadday fiican yihiin ku dhufta innagu maanta dhallinyaradeenii aad arkaysay da'da yaraa waxaa maanta lagu mashquulsan yahay dhaanto dirgax la dhaho kii gudaha joogay dirgax buu ku mashquulsan yahay kii dibadda joogay dirgax buu ku mashquulsan yahay halkan u malaynaya waxaa lagu mashquulsan yahay inaynu 4 xaraf iyo 3 xaraf iyo urur hebel iyo aynu ka hadalno waxaynu ku mashquulsannahay inaynu dastuurka Itoobiya iyo ma taqaanaa macalankana la wataa iyo afti iyo waxa loo joogino la fahansanayn iyo xorriyada la fahansanayn in laga hadlo ayaynu maanta ku mashquulsannahay waxaynu ku mashquulsan yihiin inay iscaydsadaan waxaan ku mashquulsan yihiin wiil yaro meelaha ku dhashay inuu dhaho ma taqaanaa hebel ree hebel buu maqan yahay necab yahay ree hebel maanta haddaynu nahay inu midowno DDS iyo maxay nin dulmi wada iyo nin aan dulmi wadan aynu midowno waxaasaa lagu mashquulsan yahay ummad waxaa ku mashquulsan walaalo waa laga adkaadaa ummaddeenu sidii 1991kii nin kastoo halgan waday daal baa inaga muuqda waxa weeyaan da' baa ka muuqata daliil ma laha waa la soo daalay dabacsanaan baa inaga muuqata waxaa muhiima inaan sida ummadaha kale aynu ku midowno shucuur adkaan ah aan ku midowno inaynu xorriyadoon noqonno inaynu amnigeenna soo ceshino inaynu aqoon-yahankeenna aynu free ka dhigno inaynu culimmadeenna iyo diinteenna aynu free ka dhigno maanta dadkeenna waddanka joogay waxa weeyaan nin baa wadaada waxa weeyaan ururkiisii oo dhan buu xareeyey waxa weeyaan dhallinyaradiisii buu yidhi xabaddan ka saaraya markaasuu new police dhinacii kale ka dhigay waxa weeyaan waxaasoo dhan marka hal jimcihii oo ma taqaanaa ummaddeena ayna fasax u haysaninna iyaga oo sharciga adduunka inta kale u fasaxayaan oo gaaladii ay axadoodii fasax tahay maanta deegaankeena jimcaha xitaa salaada jimcaha dadku fasax uma haystaan inay tukadaan
waxaynu u baahannahay marka haddaynu dhalinyaro nahay haddaynu aqoonyahan nahay haddaynu nahay nin dhahay halgan baynu ku jirnaa inaynu ku midoowno inaynu maanta maxaabiistayna jeelasha kasoo furanno ama adhisabaa ku xidhnaadaan ama jeelogaadeena ku xidhnaadaan ama jeelasha kale ee ka daran ee goday iyo nogobya ku yaalaha ku xidhnaadaan inaynu jeelasheenna kasoo xidhno inaynu maanta dadka la dulminayo ee loo dulminayo idaacad buu ka hadlay ama v o buu ka hadlay ama dulmidiid weeyaanoo dulmi bay diideen ama beeshan weeyaanoo waan xidhaya inaynu diidno waa inaynu diidno ninka qabiil wada qabiil kuma midoobi karayno lagumana midoobin horena looguma midoobin soomaali haddaynu nahayna qabiilku kansarkaynu nahay waa inaynu qabiilka diidno xitaa waxa qabiil u ekaan kara waa inaynu ka cararno ninka maanta dulmidiid ahaa ee minnesota ku shiraayay ee dhahaya firii qalbi dhagax firii bashiir makhtar firii maxaabiisteenna kale ee adugu aad ceebtiisa raadsinayso war ceebtiisa isaga hadh waxa weeyaan dadka halgamaya waa inay afkaarta shacabkoogu lagu midayn karo waa in la eego waxyaabaha ka dhiman waxba ha eegin maanta ninka dulmiga diidaya aynu taa samayno annagu taasaan dadka ku jihaynaynaa midnimadaasaan ka shaqaynaynaa waxaan insha allah isku dayaynaa inaan wixii aan wax ka qaban karna aan ka qabanno idinkana walaalayaal intaasaan idinku dhiirigelinayaa adigana gaar ahaan dadaalkaaga walaalo ha ka daalin anu 100% waan kugu taageerayaa adiga iyo dhalinyarada kale activistka ee soo batay durbaba dad baad dhiirigeliseenoo berigii hore dawaad ogeed waxa weeye dadkeenu daahir cali saw iyo dab casar ayaynu dhegaysan jirnay laakiin hadda idinkaa la idin dhegaystaa halkaa aynu ma taqaanaa insha allah kaga hayo walaalo insha allah aad baad umahadsantaha maxamed ciisaan kaaga mahad celinayaa sidoo kale sidaan hore uu sheegay qof mas-uul ah ama wakiil ka ah jabhadda ONLF diyaar baan u ahay inaan waraysto fikirkiisana uu ka dhiibto ama sida aragtidooda ku aadan wada hadaladii Nairobi iyo arrimahaas oo dhan waqti walba iyo saacad walbaan diyaar u ahay inaan waraysto haddana waxaan jecelahay inaan afkaartooda siiyo dadka ama taageerayaasha ama shacabka ay daawanaya ee fikradaha kala duwan qaba anoon u eegaynin waan ogahay hal dhinac bay u badnaan doonaan oo taageerayaasha ONLF bay u badnaan doonaan maxaa yeelay ayagu ma cabsadaan bannaankay yaallaan laakiin ku xisaabtama dad kale oo badan oo sidiinoo kale aan fikirka u dhiiban karin ayaa jira marka jawaabaha aan bixinayo idinka bas inaan idin jawaabaya ma aha dadkoo dhan baan u jawaabi doonaa insha allahu tacaala waadna mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinaya maxamed waa mahadsantahay walaal thank you hal mar baa idiin sheegayaa insha allahu taala intaydaan soo qabsan telefoonka qalloociya sidaa ka dhiga haddii ilaah yidhaaho sidaa ka dhiga haddii ilaah yidhaaho waxaan jeclaan lahaa telefoonada bahalka inaad inteeda saa aad ka dhigtaan ood saa isugu qabatid inta aada qabsanin ama aada ogolaanin mobileka laftigiisa kuusoo qoraya rotate buu ku leeyahay calaamadiina wuu kuusoo sawirayaa rotate markuu ku yidhaaho waa wareeji buu ka wadaa kala wareeji insha allahu tacaala qof baan u yeeray oon sugayaa maxaabiista inaga xiran ama federaalka xabsiga waxaa la ii sheegay oo dad aada ugu dhow oga warhaya ay ii sheegeen xabsiga uu ku xidhnaa bashiir axmed maktal in laga soo daayay in ka badan 500 oo qof bashiirna waa laga soo tegey waxaana si wanaaga wiil kale oo asaguna jabhadda ONLF u xidhnaa cabdullaahi la yidhaha in laga soo daayay oo ilaahay dadka oromada uu ku dhex daray maxamed maxamuudna in laga soo daayay oo dadkii lasoo deynayay uu ku dhex daray innaga dadkeenii xabsiyada federaalka ku xidhnaa cafiska loo fidinayay weli lama soo dayn waxaan jeclaan lahaa intii awood iyo tabar leh ama xataa haddaad facebook kusoo qortid oo viral ay noqoto sidii maalin dhawe jawaar maxamed uu sameeyey iyo dadka kaleba oo qof walba uu soo saaro free maxaabiista ama free our prisoners uu ku qoro uu sii sheergareeyo uu sii gudbiyo inay messagekaasu laga yaabo inay gaadho kuwa Ethiopia haysta ha dhayalsanin facebook waxa lagu soo qoro oromo oo dhan maxaabiisteeda inta badan qori maysa qaadan iyo xabad laakiin dadkooda oo facebook wax ku soo qoraya oo geesinimo iyo dhiiranaan muujiyay iyo kuwii gudaha oo ku dhiiraday inay xaqooda u istaagaan markay kuwii dibadda jooga ay dhiirigeliyeen ha dhayalsanin dhiirigelinta adigu aad samaynaysid waxay dhiirigelinaysaa kuwa gudaha jooga haddii aad maanta dhan soo qorto ha la sii daayo maxaabiistanada ha la sii daayo dad badan oo gudaha jooga ayaa ku dhiiranaya oo ayaguna la soo istaagi doona
marka messagekaas waxaan jeclaan lahaa in lagu celceliyo cabdiile kasoo horjeedkiisa in lagu celceliyo si loo dhiirigeliyo kuwa gudaha jooga. inteena weli cabsanaysa xaalad kala guuraa lagu jiraa ha cabsanina. qof baan u yeedhay qofkii waa uu soo qabsan waaye, haddana qofka ku xiga sida loo kala horeeyo baan usoo qabanaya insha allahu tacaala. malaha anoo sida kale u wareejiyaa la qaatay. saacaddan ma wareejin karo, ma aan wareejin karo kamaradda maxaa yeelay sida maan live kusoo galay. marka fadlan sidaa babaca markaan kuu yeero haddaad daawo sidaa babaca u qabso mobileka, rotate baa kuusoo qormaysa. marka rotate waa wareeji, habkaad u haystid maana waa kala wareeji. haye qof kale aan haddana soo qabanayaa. ma soo qabsamayo. nasiib daro waxay noqonaysaa sida kale ee caadiga ah baad fahmaysaa baan u malaynaya. marka waxay noqonaysaa inaan intaan ka baxo aan idiin soo qabo. diyaar baanu ahay caawa wax allaal wixii su-aal ii qaba aniga ah, xataa ka shaksi ahaan oo cabdirashiid ahaana ama raba inuu iqiimeeyo uu maarata wax iga weydiiyo, diyaar baanu ahay. waana maaratay waana soo geli. marka sidan inayna dadku fahmaynin baa laga yaabaa. marar horena waan u sheegay. marka waan ka baxayaa, kadib waan kusoo noqon sida kale aan u toosina caadi ahaanta ahayd, si aad geeska yar saasada dhinaca yar aada usoo istaagtaan insha allahu tacaala. aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. midnimada ummadda soomaalida ah ee dhulkaa degan ama u nasab sheegata waa muhiim walaalayaalo. qabiil iyo qoys iyo fikir aan lagu kala qaybinin, aan lagu kala fogeynin. waa aragtideyda shaksiga ah. aad baad umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.